waxgaradka iyo odayaasha ku sugan magaalo xebeedka Hobyo iyo madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa maanta ka qayb galay xalfad lagu caleema saarayay Suldaan Cabdullaahi Suldaan Maxamed Suldaan Ducaale oo kamid ah suldaamada ka qayb galay shirka nabadda iyo dib u heshiisiinta ee ka socday magaalo xebeedka Hobyo. Munaasabad lagu caleema saarayay suldaanka ayaa waxa lagu qabtay hoolka uu ka socday shirka nabadda waxaana mas'uuliyiinta halkaasi ka hadashay ay hambalyo u direen suldaanka cusub ee la boqray. ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay waxgaradkii ka soo qayb galay xalfadda lagu caleema saarayay Suldaan Cabdullaahi Suldaan Maxamed Ducaale. walaalayaal marka aad iyo aad u mahadsantihiin ka qaybgalka aan nagala soo qayb gasheen waan ku mahadnaqaynaa aad iyo aad waxaana codsanaynaa bahweynta habargidib saacad kaliya u shaqaynayo wuxuu u shaqaynayaa habargidib iyo Soomaaliya u shaqaynaya bi'allah waxa weeye geed hoos leh oo nin kasta oo beesha ka tirsan xasanayo marka geedkaas aan wada beeranno biyo badan aan ku wada shubnaa haddii aan la yidhaahdo isaga iyo kuwa nalamidka oo kale oo lamidkaana sidaasoo kale aan doonaynaa in loo soo agaasina ayagana haddii aan la yidhaahdo waxaan rabnaa annaga dhan inaan garwaaqsanno oo isla ogolaanno dhaqanku inuu taariikh wanaagsan beeshaan ku leeyahay oo macno ugu fadhida marka aad iyo aad baa mahadsantihiin beesha habargidir corodna ah waxaan si buuxda u soo dhawaynayaa suldaanka halkaa lagu caleema saaray oo sharafka leh kuna soo aaday marxaladda qaaliga ah runtii Suldaan Cabdullaahi Maxamed Ducaale soo dhawaa baan leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka dhigo hoggaan qiimo badan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka dhigo hoggaan waxtara ilaahay waxaan ka baryaynaa meesha uu ku saacado marxaladda ah ilaahay inuu uga dhigo khayr iyo wanaag uga dhigo waxaa meesha laga sheegay oo maanta aqbalay ayadoo jimcaha halkaana lagu casuumay beesha Sacad oo dabcan sida ay haddaba ka dhawaajinayeen gabaygii Maxamed Sahal ayay xisaab ka qaateen hadda waa ogeyn awal ba Sacad waa xisaab badnaa beelaha habargiid waa xisaab badnaa inay habargiid ka faa'iideystaan ay maanta halkaan dhaqan cuniyaan cusub jawi wada cusub qaadaan ayay dabcan go'aansadeen annagana waa idin la soo dhaweynaa suldaanka waan idin la aqbalnay mar haddaad dhaqan isku toosinaysaan halkaan marka maantay beesha Sacad beel ka mid ah baa waxay ku duubanaysaa suldaan sanadyada soo socda iyo inta cimrigiisu jiro ay rabaan inuu hogaamiyo marqaatina aan kaga noqonaynaa haddii Ilaahay idmo waxaan mar labaad uga mahad celinayaa sida karaamada iyo sharafta leh xilliga ay ku soo aaday oo beesha habargidir aayaheeda ay uga tashanayso ee suldaanka in la caleema saara ku soo aadiyana ma haddaas Ilaah waa iska leh hoolka ay ka socotay xalfadda caleema saarka ayaa si wada jir ah waxaa suldaanka cusub u caleema saaray beelaha ka qayb galaya shirka nabadda iyo dib u heshiisiinta ee haatan ka socda magaalada Hobyo. waxaan kaloo ballan qaadayaa beeshii dooratay oo wuxuu jire inaan u cadaalad sameeyo beelaha kale deriska nalaana aan sidoo kale heshiis iyo samafal iyo wada hadal aan ka bilaabo sidaasaan rabaa ayagana waxaan rabaa si cadaalad ah inaan u cadaalad faro oo u cadaalad faro oo waxa la wixii danta guud ah oo beelahaas ama hawiye ama Soomaaliyeed ina Ilaahay dartiis uu garsooro. ugu